ma jiro qof South African ah kaas oo Soomaaliya kula dhex lugay kara hubka saas u waaweyn iyo rasaastaas badan. Tani waa ku dhawaaqida dagaal. Ereyadaas waa ereyada hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada South Africa ka dhisan, haddana ah wasiirka ciyaaraha, kadib markii uu soo saaray sawir la sheegay in lagu qaaday Soomaaliya laakiin asaga uu ka dhigay in lagu qaaday South Africa. Mid kale oo xisbi kale hogaamiya asagana waxa uu dadka la wadaagay muuqaal oranaya saldhig ku yaala tuulo hoos timaada Johannesburg waxaa hareereeyay ama isku weer ka qabtay Soomaali sharci darro ah oo aad u hubaysan, booliskuna awood ay isaga difaacaan ma hayaan. Ereyadaas dadka lagu kicinayo iyo kuwa la midka ah waxa ay qayb weyn ka yihiin olole lagu beegsanayo si gaar ah dadka Soomaalida ah ee degan South Africa. Guud ahaan ajaanibta ku nool South Africa waxaa lagu eedeeyaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin inay la wareegeen shaqooyinkii South Africaanku ka shaqeey lahaayeen, inay gadaan cuntooyin dhacsan, kuwa sumaysan iyo daroogooyin, in waxyaalaha ay dukaamadooda ku gadaan ay ayagu samaystaan. Qaarkood waxaa lagu eedeeyaa dhac, dil iyo anshaxumooyin kale. Waxaa kale oo lagu eedeeyaa inay waddanka ku joogaan sharci darro si kasta oo sharci haystaan. Ajaanibta ku nool South Africa guud ahaan waxa ay si joogto ah ula kulmaan dilal, dhac, boob, xadgudub xuquuqdooda iyo karaamadooda, faquuq joogto ah iyo cadaalad darro ay kala kulmaan shacabka, hay-adaha dowladda sida booliiska, isbitaalada iyo adeegyada kala duwan. Laakiin arrimahaas intooda badan waa arrimo muddo dheer soo socday, dadka intooda badan ay iskala qabsadeen. Laakiin hadda waxaa soo kordhay waxyaabo badan oo cusub. waxyaabihii soo kordha bilihii ugu dambeeyey ayaa ah waxaa ka mid ahaa in ajaanibta lagu eedeeyay in ay dileen dad badan oo dhintay, oo u badan carruur iskooley ah. waxaa waddanka dhan ku shaacsan in carruurtaas oo dhowr iyo 20 ah ay dhinteen kadib markii ay cuneen cunto fudud oo ay kasoo iibsadeen dukaamo ay leeyihiin dad aan South African ahayn. dadkaas la eedeynaya waxaa ka mid ah Soomaali. sidaas darteedna guud ahaan waxaa lagu baaqayaa dowlad iyo shacabba in la xiro dukaamadaas. Soomaalida ku nool waddanka intooda badan waxa ay ka shaqeeyaan dukaamada noocaas ah ee lagu gado cuntooyinka, waana arrin aad u saameyn karta guud ahaan Soomaalida ku nool waddanka. inkasta oo dowladda ay ku doodayso in aan xiriir ka dhaxayn dukaamadaas iyo dhimashada carruurta, laakiin dadku waxa ay ku adkeysanayaan in xiriir ka dhaxeeyo ayna dukaamadaasi sabab u yihiin inay carruurtaas dhammaadeen. arrimaha kale ee soo kordhay ee Soomaalida aad u saameynaya ayaa waxa ay yihiin in wax kasta oo dhaca lagu eedeynayo Soomaalida waayihii hore aad looma aqoon oo waxaa la dhihi jiray inay yihiin Bakistaaniyiin ama ay yihiin Hindi, amaba loogu yeeri jiray makuula oo ah erey lagu caayo Hindida, kaasoo macnihiisa la sheegay inuu yahay xamaali, maadaama Hindida uu keenay Ingiriiskii si ay wadooyin ugu dhistaan, beerana ugu fashaan. sidaas darteedna waxaa lagu magacaabay makuula oo macnaheedu yahay xamaali. sidaas darteed Soomaalida waxaa loo haystay inay ka tirsan yihiin makuulahaas oo ah Hindida. laakiin muddooyinka ugu dambeeyay waxaad dareemaysaa inay dadkii kala barteen Soomaalida iyo dadka kale, ayna Soomaalida ku eedeynayaan waxyaabo aad u tiro badan oo si gooni ah Soomaalida farta loogu fiiqayo. tusaale ahaan labadii sheeko ee aan kusoo bilaabo mowduuca, nina ku eedeeyay Soomaalida inay qoryo iskala lugeynayaan waddanka South Africa, midna uu ku eedeeyay inay saldhig dhan xoog ku qabsadeen, taas oo aan macquul ahayn markii la eego xaaladda Soomaalida South Africa. haddaba si aan u eegno in Soomaalida si gooni ah loo bartilmaameedsanayo, ila fiira ayagana qoraaladan markii laga soo tago kuwii aan hore u sheegnay, bal kuwaan ila eeg. ninkan waxa uu leeyahay Soomaalida waxa ay soo saaraan wax kasta oo been abuur ah, waa in waddanka la geliyaa ayuu leeyahay xaalad degdeg ah. midkan kale eeg, dadkaan ka hadlayno ma aha dad caadi ah ee waa dad inta badan jagooyin haya ama xisbiya xukumo. ninkan waxa uu leeyahay dadku waxay iska dhigayaan inay la yaabeen in Liibyaan ay qoryo ku haystaan South Africa, laakiin kulaha Soomaalida qoryo waaweyn ayay la soo baxeen magaalada loo yaqaano PE waxayna ka guuleysteen wadayaasha gawaarida taksiga ah. mid kale waxa uu leeyahay ma jiraan South African Soomaali dukaamo ku leh. nin gudoomiye magaalo ah ayaa waxa uu Soomaalida ku eedeeyay inay burkii dhan oo South Africa ay ayagu qarsadeen kadibna ay suuqa dib ugu celiyeen isaga oo qaali ah. isku soo wada duub oo waxaad u moodaa muddooyinkii lasoo dhaafay in Soomaalida ku nool South Africa si gooni ah farta loogu fiiqayo, si gooniyana loogala dhex baxayo guud ahaan ajaanibta kale, laguna eedeynayo waxyaabo badan oo ay iska caddaa xataa inay Soomaalida aysan awood u lahayn. waa hagaag, intaas ayaan kusoo koobaynaa mowduuca maanta. haddii wax uun kaaga baxeen mowduucaas, fadlan isku day inaad subscribe dhahdo, like dhahdo, share dhahdo.